barta xirfada farsamada gacanta waxaa jira boqolaal dhalinyaro ah oo ku shaqaysta isla markaana ay anfacday waa baahi asaasi oo ay u baahan yihiin gaar ahaan dumarku waxaanan marnaba ilaabi karin runtii dahabshiil oo aan jeclaan lahaa maanta inay halkan igula sugnaato oo qayb laxaadla ka qaadatay ganacsigayga isla markaana ah yacni halkii aan ka aas-aasay gacan weyna iga siiyey ganacsigayga besti waxay jirtaa muddo 3 sano ah intaana waxa ay ku shaqaysaa farsamada gacanta oo maydkii ah xinihii ah decorationkii oo qurxintii xafladaha iyo aroosyada meherada dhalashooyinka iyadoo ku shaqaysa haddana waxa ay si hagar la-aan wax u bartaan dhalinyarta dalka ilaa gaar ahaan gobolada iyo caasimada kuwa joogaba waxaanaan maxay tooleeyeen marnaba aanaan ilaabin dhalinyar kasta oo meesheeda wax ka barata oo courseskaas dhawaysata inaanu u samayno munaasabad qurux badan oo sidan oo kale ah isla markaana aanu ku sii sabootino besti waxa ay diyaar u tahay mar walba inay dhiirigeliso dhalinyarada gaar ahaan haweenka haweenku waa xiriirka keliya ee dalku leeyahay waana wax soo saarka mar walba bulshada waana u baahan in la garab qabto hablahayga quruxda badan ay daawanaya waxaa leeyahay hambalyo dadaalkiinii dheerigaha ay ka soo bardhaliseen ee usoo samirteen waxaa rajaynayaa ganacsigiina inaan arko waxaa rajaynayaa dad aad soo saarteen oo wax barteen inaan arko waxaa rajaynayaa si hagar la-aana aqoontiina inaad u fidisaan wanayna hambalyaynayaa farxaddeeda lama soo koobi karo aad baad u mahadsantihiin aad baan idinla faraxsanahay maadaama aniga oo dareemaya dumarnimadii iyo inannimadii hablahaygii oo maanta muxuu ahaayey qalin jabinayo faraxsan runtii aniguna aan idinla faraxsan oo farxaddayda lama soo koobi karo 1 jeer waan idin hambalyaynayaa hambalyaan idin leeyahay hambalyada ugu weyn waxa la sulaakha oo runtii ilaahay inta ka sokaysa iyadu sababteeda lahayd maasha Allah tabarakallah waa wax lagu faano anaga ahaan aniga oo matalaya ururka wadaniga aan hay'adda wadaniga waawo arimaha aan inta badan ka shaqeynana ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa horumarka dhinac kasta ee haweenka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan madashan la joogno waan idin hambalyeynaa mar labaad iyo mar saddexaad aqoontan dadaalka badan gelinay ee jaamacaduhu ma anfacda inta badan qof kasta oo ka baxa adduunka waxa anfaca waa xirfad idinkana maanta xirfad baad barateen wixii ugu quruxda badnaa baad barateen decoration dhinac kasta haday noqoto dadkii qurxintii dadka haday noqoto qurxintii guryaha gawaadhidii yacnihii waxyaabaha aad barateen waa waxyaabo wadankeena aad looga baahan yahay qofkuna iskii ugu shaqaysan karo intaas oo gabdhood oo bartay xidhnihii oo bartay makeupkii oo bartay decorationkii oo taa macnaheedu ay tahay inaad iswada kaafiyi doontaan isku filnaan doontaan saddex kastoo idinka mid xitaa hadday samaystaan meel yar inay isku filnaan doonaan midda labaad waxa weeyaan Suleekha ayaan aad iyo aad iyadana ugu hambalyaynayaa inta iyadu wax baratay inay haddana garatay hablaha kale ee u baahan iyo dadka kula midka ah ee walaalaha ah uga faa'iiday xirfadaada iyadana aad baan ugu hambalyaynayaa idinkana aad baan idinku hambalyaynayaa dadaalkaad gaadheen midna waan idinkula dardaarmayaa waxa weeyaan taan idinkula dardaarmayaana kolley intii naftu hayaan tahay hawl ma weydo wax kasta way idinka hor imanayaan inaydaan isdhiibin wax kastoo idinka hor yimaadana inaad yeelataan awoodeeda iyo kartideeda aad kaga hortegi doontaan haddii aan ka hadlo ururka saxaafadda ee gabdhaha aad iyo aad buu jecel yahay ama aad iyo aad buu uga shaqeeyaa in dumarka la horumariyo xirfadahooda kala gedisan ee saxaafadda hadday tahay dhinaca kale ee ganacsiga oo iminka ah goobtan aynu joogno kaleeto inaad barateen maxaa la yidhaahdaa xidhnihii iyo decorationkii iyo makeupkiiba farsamada gacantuna waa waxa aad ugu muhiimsan ee lagu shaqaysan karo inaad cidna u baahan doonin qofku markuu qalin iyo buug wax ku barto iyo marka uu barto skills ama xirfadaha uu kala jaanis run yahay
waxaa laga yaabaa koofeer haddaad furato in habeen keliya ama $500 ama $1,000 soo galaan haddaad se master ama degree tahay mushaharka qaata waa la garan karaa meesha doonaha noqdeen markaa hambalyaan leeyahay hablaha suleekhana waxaan leeyahay horoo soco best waxaan leeyahay laga warhayo insha Allah bismillaahi kariim waxaan leeyahay waa difcadii shanaad haddaan wasaaradda waxbarashada nahay waxaan aad ugu faraxsanahay hablaha waxbarashadooda wadankooda muu soo dhaweynayaa haddii aad doonaysaan in aad wax noqoto waa inaad halkaa ka gudbaan laakiin haddaad doonto inaad weerarsato shaqaysato heli maysid waa la waayey fadhi iyo fudi cibaad waa la isku waayey marka waxaa la doonaya insha Allah bismillaahi kariim inaad dadaashaan inaad iskuula furataan inaad shuraakowdaan ما هبونا جامعة ولا برتان جامعة ده وحول مدعنا حفيزنا موضة فريسانية لكن هبلها سكيلز كبرتي واحد فضا بدن هدي دوارت هاي هدي كوافير قرحين تشركة هاي هدي حنات هاي دكورش كم كوي نقول اسم هدي هاي من البقى عنتي الوكيو كوش قيساني سا ويحرفضها قاعد يحصل صوب حيسا مركا وحنا عادي أدقو همبليين يا حرفضها أنا يبرتين أنا همبلي بان ليه قيمها بدن waxaan aad ugu dardaarmayaa caawa hablahan habluhu wax bay bartaan in badan bay tacab galaan dadaal badan bay sameeyaan geedi badan bay soo maraan halkaas markay u dambeysay ee hawsha dhameeyaan ay ku gabagabayaan ku niyad jabaaday shaqo hore waayaan ma aha inaad shaqo khasab hesho maaha gurihiina inaad ku shaqaysan kartaan idinkoo isku tago u reer samaysto oo qof la dhowr qof meel wada furtaan meeradii ayaa lagu shaqaysan karaa marka waxaan leeyahay shaqadu iyo xirfadan aad baratay waa gacan ku hayn weeye xirfada ha ka hadina wax hadii faraa laga qaado waa leelaawa laakiin xirfada ku adkaysta oo xirfada ku shaqata ku shaqeeya gurihiina ku shaqaysa inanta gurigeeda ku dhex shaqaysa xinaa ku mariso qura ayaa faa'iideysa inanta suuq ku baxdaana ka sii qaalisanba hablaha waxaan caawa kula dardaarmayaa quruxda badan leh halka xirfada ha kala hadina in suleekha waxaan ku boorinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba iyada oo hooyo ah oo waliba hooyo yara oo shaqaysanaysa oo haddana awoodeeda awood ka badan samaysay oo hablo intaasoo tira caawa 40 ka hablo wax bartay hambalya baan leenahay haddii habluhu saa gacanta isu wada qabtaan meel baa la gaadhayaa waxaan sa suleekhana kula sii dardaarmaya suleekha iyo xoog Allah ku barakeeyo inta ay in ka badan inaad sii tacabka sii geliso oo halka kaga hadin waayo waxa timid waa dafadii shanaad weeye waxa soo martay waqti dheer baa soo martay waxa soo martay dadaal badan baa soo gelisay tacab badan baa soo gelisay halka kaga sii hadin sii gacan qabo